arday walba oo waxbarashada ku guda jira waxa uu jecel yahay inuu ku guuleysto waxbarashadiisa heer sarena uu ka gaadho. Subax walba kumanaan arday ah ayaa u kala goobaha waxbarasho, hadafkooduna yahay inay ku guuleystaan aqoonta iyo waxbarashada. Haddaba waxbarashada sidee ayaa loogu guuleysan karaa una noqon kartaa arday wanaagsan waqtigiisa iyo dadaalkiisana ka midho keena? Tallaabooyinka soo socda waxaan ku eegi doonaa nidaamka ugu wanaagsan ee ardaygu ku guuleysan kara inta uu waxbarashada ku guda jiro. Halkani waa Barasho Channel. Mar walba oo aad doonayso inaad wax akhrisato waa in aad akhrisaa qaar ka mid ah aayadaha Qur'aanka Kariimka ah oo waa waxa ugu wanaagsan ee la akhriyo. In aad doorato meel ku habboon akhrinta, kana fogow meelaha dadku ku badan yahay. Waa in aad yeelataa meel kuu gooni ah oo aad wax ku akhrisato. Jadwal fiican waa inaad u samaysataa qorsheynta waqtigaaga. Jadwalkaaga waa inaad ku muujiso xilliyada cibaadada iyo la kulanka asxaabta oo muhiim u ah nolosha caadiga ah. Ku dadaal inaad wax ku akhrisato iftiin kugu filan. Marka aad casharka akhrinayso waa in aad dul martaa casharka oo dhan, kadibna aad qayb u akhrisataa. Iskuna daydaa in aad diiwaan geliso meelaha ugu muhiimsan ee casharka. Ka fogow dhererka badan waayo waxa uu kuu horseedi karaa caajis. Haddii aad doonayso inaad guuleysato, isku day inaad kaligaa wax akhrisato. Wax walba oo kaa mashquulinaya inaad casharkaaga akhrisato ka fogow, sida telefishin, sheekada iyo wixii la mid ah. Marka aad dareento daal, isku day inaad 5 daqiiqo nasato si aad uga caajisin casharka. Isku day inaad mar walba seexato waqti kugu filan. Mar walba oo aad seexato waqti kugu filan waxa aad helaysaa firfircooni dheeraad ah oo aad casharkaaga ku sii akhrisan karto. Ogow, horumarka waxbarashada waxaa qayb ka ah in aad dhegeysato macallinkaaga, waayo haddii aadan casharka si fiican u dhegeysan waxa kugu adkaanaysa hadhowta akhriskiisa iyo fahamkiisa. Mar walba waa in aad Alle u mahadceliso kuna barido inaad guuleysato. Qodobadaasi waa qodobada kuu horseedaya inaad waxbarashadaada ku guuleysato. Dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa guul.